Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada muuqaal cusub. Caawa waxaan qaadanaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee qaybaha kala duwan ee u leedahay qaraha ama xabxabka. Qaybta koowaad, xabxabka. Xabxabku waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu caansan ee xilliyada kuleylka dadka ay aad u jecel yihiin, kaasoo ka taageera dadka jawiga kulul iyo in uu beddel ugu noqdo biyaha jirka ee lumiyay dhididka daraaddiis. Sidoo kale, aad ayuu u noqon karaa mid ku habboon dadku inay jecel yihiin ama ay ku lumiyaan miisaankooda, weliba ay ku yareeyaan difaaca jirka waxyaabaha wasakhda ah ee kasoo weerari kara dhanka kelyaha. Kuwan soo socda ayaa ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay qaraha. Qaraha ama xabxabka waa raashineed ama qaraha. Wuxuu qaruhu boqolkiiba 92% biyo ah, waana biyo, waxaa ku jiro fitamiino aad u kala duwan sida fitamiin C, fitamiin B, fitamiin A, iyo folic acid. Weliba waxaa sii raacsan potassium-ka. Waxaa kulul ama daaq ah lagama helo marka laga fiiriyo qiimaha raashineed ee qaruhu uu leeyahay, waxaana ka mid ah kuwan soo socda, waana 8 qodob. 1. Wuxuu xoojiyaa difaaca jirka, waayo waxaa ku jiro fitamiin A. 2. Wuxuu jilciyaa caloosha ama calool fadhiga. Wuxuu ka hortagaa qofka in ay saxarada dhibto, waana u fududeeyaa. 3. Islaanta uurka leh ama hooyada uurka leh wuxuu aad ugu fiican yahay xilliyada uurka ay leedahay in ay qaadato ama ay isticmaasho qaraha. 4. Bukaanada wadnaha aadka u liita ee xanuunayo ayuu u wanaagsan yahay qaraha ama xabxabka. 5. Bukaanada kelyaha ayuu u wanaagsan yahay. 6. Caafimaadka maqaarka ayuu xoojiyaa. 7. Xanuunka kala-goosyada ayuu u roon yahay qaraha ama xabxabka. 8. Ma awoodayo xoojiyo ama dabiici ah waxyaabaha ay ragga aadka u isticmaalaan, waana awood xoojiyaha dabiiciga rasmiga ah ee raganimada. Kansarkana aad ayuu uga hortagaa. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.